kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal waa duhurnimo khamiis ah 3 bisha Maarso ee sanadka 2022 idaacada duhurnimo waxay idin la socodsiin doontaa anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdullaahi qodobada aad ku maqli doontaanna waxay kala yihiin dagaalka Ukraine oo ka socda bariga koonfurta iyo waqooyiga dalkaas iyadoo dagaalku galay isbuucii labaad boqolaal qoys oo abaaro ka soo barakacay oo soo gaaray magaalada Gaalkacyo culays aan awoodin baa isaaran dadkaas waxaan u hayana lama arko waa dad baahan biyo macaan ma haystaan biyo qaraara markay arkeen bay shuban ilmihi uga waasheen dhakhtar ma leh isbitaal wax lagu geeyo ma leh dadku waxay u baahan waa dad emergency in lala soo gaaray u baahan yihiin deegaanka tirsan Sanaag oo ay ku dirireen dadka deegaanka iyo ururka Al-Shabaab guddiga taakulaynta abaaraha ee Somaliland oo socdaal ku maray deegaanada ay abaaruhu saameeyeen ee Somaliland qodobadaas oo faahfaahsan iyo wararkii ciyaaraha ayaad ku dhageysan doontaan idaacadan duhurnimo oo ay soo saartay Fartuun Ismaaciil balse waxa intaas oo dhan ka horeynaya wararka caalamka ee BBC-da Saxnuun Axmed ayaa u diyaar ah mahadsanid Kawsar dagaal ayaa weli ka socda gudaha iyo hareeraha magaalooyinka ku yaala bariga koonfurta iyo waqooyiga Ukraine iyadoo duulaanka Ruushku galay toddobaadkiisii labaad caasimadda Kiev ayaa xalay lagu arkayay qaraxyo waaweyn oo dhacaya kolonyadii ballaarneed ee ciidamada Ruushka ee ku soo wajahnaa waqooyiga Kiev ayaan weli soo gaarin magaalada meelaha kale ee dagaalku ka socdo ayaa waxaa ka mid ah caasimadda labaad ee Ukraine oo lagu magacaabo Kharkiv iyo magaalooyinka Chernihiv iyo Sami dhinaca koonfurta Ukraine magaalo takadeedka muhiimka ah ee Mariupol ayaa la duqeeyay balse duqa magaalada ayaa sheegay in ay iska caabiyeen weerarka Ruushka qaramada midoobay ayaa sheegtay in 1 milyan oo qaxooti ah ay isaga carareen Ukraine tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ruushka kala bar dadkaas waxay aadeen Poland inta kalena waxay aadeen wadamada Hungary Romania Slovakia iyo Moldova Martin Michaelki oo ah ku-xigeenka hay'adda aan dawliga ahayn ee wadahadalka furan ayaa sheegay in ay caawinayaan qaxootiga Ukraine ee ku sugan Poland iyagoo taakula u diraya militariga Ukraine We're working on two tracks simultaneously. First of all, it's transporting the refugees and collecting offers. laba arrimood ayaan isku mar ka shaqaynaynaa in gaadiid lagu daabulo qaxootiga iyo in yabohyada la ururiyo kadibna loo fiiriyo baahida qaxootiga laakiinse isla markaa waxaan geynaynaa gargaar bani'aadminimo iyadoo hay-ado badan ay bixiyaan cunno dhar iyo dawooyin waxaan rumaysanahay in aan nahay hay-adda keliya ee u isticmaasha deeqaha inay ku bixiso waxyaabaha qaaliga ah ee militarigu isticmaalo sida jaakadaha xabaddu aysan karin koofiyadaha askarta ee birta ah qalabka habeenkii wax lagu arko iyo raadiyayaasha gacanta waxaa kale oo noo furan arrin ah inaan soo gadano diyaaradaha bilaaduuliyaha ee militarigu xogta ku aruuriyo haddii aan helno deeq 100,000 oo euro ah portable radios. We even have an option of purchasing a military reconnaissance drone if we get a 100,000 euro donation. afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegay in ka badan 3,000 oo muwaadiniin Shiineys ah ay si nabad ah uga soo baxeen Ukraine iyagoo gaaray wadamada dariska la ah Wang Wenbin ayaa u sheegay wariyaasha in mas'uuliyiinta Shiinuhu ay qiimeynayaan xaalka qiimaha saliidda iyo gaaska ayaa weli kor u socda caalamka iyadoo qiimaha shidaalka ciiriinka ah ee Brent uu kor u kacay in ka badan $119 fuustadii muddo 10 sano ah inkasta oo dhoofinta shidaalka iyo gaaska ee Ruushka hadda laga reebay xayiraadaha ay soo rogeen reer galbeedku haddana waxaa jira diidmo ballaaran oo ka dhan ah iibsiga alaabaha Ruushka maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ayaa bilowday inay aruuriso cadeymo la xiriira suuragalnimada dambiyo dagaal oo ka dhacay Ukraine dacwadoogaha guud ee maxkamadda Karim Khan ayaa sheegay in uu furay gal baaritaan kadib markii ay soo jeediyeen 39 wadan ugu dambeyntiina maxkamad ku taala Tokyo ayaa 6 bilood oo xabsi ah ku xukuntay madaxii hore ee fulinta shirkadda gawaarida samaysa ee Nissan kaas oo lagu eedeeyay in uu ka caawiyay gudoomiyihii hore ee shirkadda dakhli uu qariyay warkii dunida waa inaga intaas aan dib kugu celiyo Kawsar iyo qaybaha kale idaacadda aad buu mahadsan yahay Saxnuun Axmed halka warkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee BBC-da dhageystayaal u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadeena duhurnimo واتايان ku bilaabnay sida warka caalamka baad ku maqleyseen dagaalka Ukraine ka socda ayaa ka socda bariga koonfurta iyo waqooyiga dalkaas iyadoo weerarka Ruushku galay isbuucii labaad
qarax weyn ayaa xalay laga maqlay magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine. dhanka kale dagaalo ayaa waxa ay ka socdaan caasimadda labaad ee Ukraine ee Kharkiv ee waqooyi bari Chernihiv iyo Sami. dhanka koonfurtana magaalada istaraatiijiga ah ee Mariupol ayaa aad loo ilaalinaya. wararkii ugu dambeeyay waxay noo haysaa Fartuun Ismaaciil. ciidamada Ruushka ayaa la wareegay gacan ku haynta magaalo muhiim ah oo ku taala koonfurta Ukraine sida uu sheegay duqa magaaladaasi. dagaal culus kadib Kherson waa magaaladii ugu weyneed ee ugu horeysay ee uu la wareego Ruushka tan iyo markii uu Ukraine duulaan ku qaaday toddobaad ka hor. duqa magaaladaasi ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay xoog ku galeen dhismaha golaha deegaanka ee magaalada ayna bandow ku soo rogeen dadka deegaanka degan. magaalooyin dhowr ah ayaa duqeymo xoogan laga fuliyay iyadoo maalintii Arbacada ay ahayd mid ka mid ah maalmihii ugu khasaaraha badnaa ee uu dagaalku sababay. waxaa maanta magaalada Hague ee dalka Holland ka bilowday baaritaan lagu ogaanayo dambiyo dagaal iyo dambiyo ka dhan ah bani'aadanimada oo laga geystay dalka Ukraine taasoo ay sameynayso maxkamadda caalamiga ah ee ICC. Ukraine ayaa ku waramaysa in ka badan 2,000 oo qof oo rayid ah ay dhinteen tan iyo markii duulaanku bilowday Khamiistii la soo dhaafay. colaadda ayaa sidoo kale sababtay in ka badan 1 milyan oo qof ay ka qaxaan Ukraine sida ay sheegtay qaramada midoobay. madaxa sare ee xiriirka arrimaha dibadda ee hay'adda UNHCR Christine Birovolax ayaa BBC-da u sheegtay in dad aad u tiro badan ay dalka ka baxayaan. haddii ay sidan ku sii socoto waxay noqon doontaa dhibaatadii ugu weyneed ee qaxootinimo ee Yurub ee qarnigii tagay. tirada dadka ka qaxaya dalka waxay kor u dhaaftay 1 milyan waxaana jira tiro kale oo milyan kor u dhaafaya oo ku barakacay gudaha. kuwaasina waa kuwo lagu qasbay inay guryahooda ka barakacaan dagaalka awgeed. dad rayid ah ayaa sidoo kale ku xayiran qaybaha kale ee dalka waxayna isku dayayaan inay iska joogaan xabadda socota darteed ama in iyagoo badan ay u gudbaan dhanka galbeedka waddanka. Ruushka ayaa markii ugu horeysay qirtay in khasaare military oo xoogan uu ka soo gaaray weerarkii uu ku qaaday Ukraine iyadoo 498 ciidan ay uga dhinteen halka 1597 kalena ay uga dhaawacmeen. Ukraine ayaa sheegtay in khasaaraha Ruushku ay dhaafayaan kumanaan. sarkaalka midowga Yurub oo qaabilsan arrimaha gudaha Ylva Johansson ayaa sheegtay in guddiga uu doonayo xaqiijinta in dadka ka qaxay Ukraine aanan lagu daahin xuduudaha. waxay dalalka dariska ku ammaantay sida ay uga falceliyeen xasradda balse waxay sheegtay inay u baahan yihiin caawimaad si loola tacaalo qulqulka qaxootiga. waxaa la joogaa xilli lagu faano Yurubnimada balse sidoo kale waa xilli ay tahay inaad qaadato go'aan adag. waa inaanu meel dhignaa qorshe gaar ah oo lagu badbaadinayo qaxootiga reer Ukraine. waxaana u baahannahay dhaqaale si aan ula tacaalno xaalad kasta oo ka dhici karta xuduudda waddanka. waxaanu yeelanay kulan degdeg ah 4 maalmood ka hor haatanna mar kale ayaanu kulmaynaa. waxaana rajaynayaa in maamulada kale aanu ku midoobi doono arrinta qaxootiga iyo sidoo kale isla gobollada ay haatan soo gaartay saameynta. magaalada labaad ee ugu weyn Ukraine Kharkiv ayaa waxaa ku socda duqeyn cirka ah. duqa magaaladaasi ayaa BBC-da u sheegay in gantaalo lagu duqeeyay deegaano ayna khasaare ka soo gaareen dad rayid ah. Fartuun Ismaaciil oo inala socodsiinaysay wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka Ukraine ayay ahayd. aad baynu mahadsan tahay. markana wararka Soomaalida eegne ee wararka ka imanaya magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in magaaladaas ay soo gaareen qoysas 100 ka badan oo ka soo barakacay abaaraha ka jira deegaano ka tirsan gobolka Mudug. dadkaas ayaa kaam looga sameeyay magaalada Gaalkacyo. qaar ka mid ah dadkaas ayaa BBC-da ugu waramay duruuftii ay ka soo barakaceen. waxaan ka soo barakacay meel doolantir oo hoosta deeqo ilaa waxaan nahay 8 qoys oo ka soo barakacay abaaruhuna ay ku dhigeen qofna ana hooyeen dadkii hore oo Itoobiya ay ka baxay ka dhaalaan ahayd abaarihii hore ka bacdi waxa dhacday abaar waddanka hadda ka jirta biyo la'aan leh xoolihii ay lumeen haddii la furan yahay sidaas awgeed ayaan macnaha hooyeen aan uga soo barakacnay waxaana niyadoo suganahay saamka Xamud oo hadda aan joognaa ayadana ka tirsannahay hadda aan gurina macnaha hooyeen gargaara ama macnaha hooyeen aan la kulanay ma jiraan anagu qaasatan halkaas anagu sidoo qoys waan uga nimid oo familkeena isku deegaan aan ahayn xaaladda iyadu weli macnaha hooyeen gargaar guri ma la helin macnaha hooyeen sidaan u nimidna
وأستقبل الحميسي واحد لها تلو ما أنا أخوي أنقص مرنا وحواه لا مرنا واقدا وعن هذا هاي نجي مثلا ما أنا أخوي أن مثلانين أو حوالينا وأكسر تبناه تكلم يدو ما أنا أخوي أن وحنا صوب من الجرجات بلا أنا أخوي أن ميلان كذا عنو كام كاسال أن سويدي ولنا إنه قصدنا نوقع بالشيء أو ما أنا أخوي الدول دوقة في مثلانين ما عبد علي جمعة ما قرأتي وأنا ذاتي لقحان قال كعيد عسيه دجنا ورقص أنا سهورني الأول يقول لي بندير لي سد حلي ذاتي دجنا ما نحين حولي سنوزي دبت شغلنا برغدي هي وسكسي سعودان كهرنا وسكنا ماذا أنا كليا سوهرني تقولون كذا سومر مرني هراء سوقوني كان دو حمد ما اسكا سو دوبني إلهي هدنا سو غاري oo maxaan ku yiraahdaa anfac lana ma jiraan maalinta dhowr maalmood kadib ayaa waxaan naloo keenay wax yaro biyo laba caag iyo istaxaan maaqaan iyo wax yaro cunta oo maalin la karsaday 7 qoysna waan hoos saaran oo isdhashay waan kala hari karin 7 halkaan ku soo aruurnay hadda hoy male biyo male cunto male daawo male meeshaan dadka iska hordhooban yahay wax dabshitaa waa iska yar yihiin marka ilaahay baan sugeynaa hay'adaha caalamka iyo dadka islaamka ilaahay wax siiyay ilaahay baan sugeynaa waxaan codsanaynaa in nala soo gaaro marka u horeysa waxaan cunno waxaan cabno meelaha harsano ku hoyano cunto iyo biyo iyo daawo iyo hoy nala soo gaaro bustayaal iyo dhar sida hadda adigu aan arki jirnay bishaan wixii ka dambeeya xilli roobaad weeye hadda roobkuna hadduu dadka saan u baahan helo dabeesha ku filan waxa ka hari mahayaan dumarka iyo carruurna nafaqo la'aan bay u dhimanayaan iyo dadka waayeelka waasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah qoysaska ka soo barakacay abaaraha ka jira deegaano gobolka mudug ka tirsan oo ku sugan kaam ku yaala magaalada gaalkacyo oo BBC-da u waramayay haddaba intaa kadib waxaanu la xiriirnay Fartuun Cabdi Dhoof oo dadkaasi qaxootiga ay isugu geysay kaamka Dooxa Mudug oo ay iminka ku jiraan khadka telefoonka ay ugu warantay hadda waxay ku sugan yihiin kaam la yiraahdo Dooxa Mudug bay ku sugan yihiin oo joogaan dadkan dhowr meelood bay ka yimaadeen dad waxay ka yimaadeen Qarrow meel la yiraahdo dad waxay ka yimaadeen meel baarkiishaga Hoobiye agteeda oo la yiraahdo Ceel Dheere dad waxay ka yimaadeen Laanwaaley iyo halkaas dad waxay ka yimaadeen hadduu alla ku idmaayo sax qurun way ka yimaadeen dad waa dad awl soo barakaco meesha jooga abaaro hore ahaa dadku waa isku dhex jiraan tirada ilaa hadda idin soo gaartay maxaa lagu qiyaas karaa tirada hadda kaamkan dhex degan oo na soo gaartay oo dadka haddeertan saameeyay abaaraha oo xooluhu ay ka dhamaadeen waa 120 qoys 120 qoys tiro yar ma aha dadkaas yaa u maqan oo ay sugayaan alle cid kale oo markaan u maqan oo sugayaan lama arko beesha caalamka iyo hay'adaha caalamiga ah iyo muslimiinta waxaysta baan waxaan ka codsanaynaa dadkaas inay gargaar degdeg ah ay la soo gaaraan anna hadda waxaan baalkiisha dareemayaa culays aan awoodin baa isaaran dadkaas waxaan u hayana lama arko waa dad baahan biyo macaan ma haystaan biyo qaraara markay arkeen bay shuban ilmihi uga waasheen dhakhtar male isbitaal wax lagu geeyo male dadku waxay u baahan waa dad emergency in lala soo gaaray u baahan yihiin marka laga soo tago dadka hadda ay abaaruhu soo barakiciyeen ka hor ma waxaa jiray dad kale oo kaamka ku sugnaa waa jiraan laakiin dadkaas dad badan ma ahan yaa hadda u badan dadka ku sugan meesha ma dumar iyo carruur baa yaa u badan dumar iyo carruur baa u badan maxaa ilaa iyo hadda loo qabtay wax loo qabtay cadow madow weli ma jiraan maxaana loo qorsheeyay in loo qabto weli wax loo qorsheeyay oo la yiri waxaas loo qorsheeyay nama soo gaarin xaaladda markaad eegtay dadkan kaamka ku jira ee soo barakacay maxay yihiin waxyaabaha ay sida degdeg ah ugu baahan yihiin waxay u baahan yihiin cunno qofku hadduu haysto waxa kale waa loo raadi karaa laakiin markaan waxay cunaana ma haystaan biyo macaanna ma haystaan caafimaadna ma haystaan hoyna haba sheeginba meel cidlaahay dhooban yihiin buushash yaryaraha loo dhisay buushna wuxuu qadaran yahay waa la yaqaanaa waa coosh dabayshaas dab yar haddii la huriyo uu ku dhago wuu gubanayaa dadkaas qarrib bay ku sugan yihiin qarrib haddii tirada intaa ka sii badato oo dad hor leh ay yimaadaan kaamka maxaa dhici kara waxaa dhici kara inaysan la isxamili karin inaan la is awoodi karin inay waxay haystaan la arag inuusan kaamkii qaadin in gargaar degdega lagala soo gaaro dadkan taasi waxay ahayd Fartuun Cabdi Dhoof madaxa kaamka Dooxa Mudug ee Gaalkacyo oo ay ku jiraan
qoysas ka soo barakacay abaaraha ka jira deegaano ka tirsan gobolka Mudug oo ii warramaysay. aan dib ugu laabto qodobkii ugu horreeyay ee barnaamijkeena ee dagaalka Ruushka iyo Ukraine. dhageystayaasha qodobkooda dhanka Facebook noo soo mariyay ee qodobkaasi raayigooda noo soo mariyay waxaa kamid ah Yaxya Sarcade oo jooga Caabud Waaq. wuxuu leeyahay dowladda Ruushka ee qabsatay magaalada ku taala Ukraine runtii waa qayb kamid ah guulaha uu Ruushku ka gaaray ee dagaalka Ukraine, waxaana macquul ah buu leeyahay inuu ku sii siqo qaybaha kale ee dalkaas. Badri Cabdullaahi oo jooga Booramo isna wuxuu leeyahay dagaalka Ruushka iyo Ukraine u dhaxeeya ee maalintii 8aad galay runtii waa arin walaaceeda leh oo sababi karta dhaqaale yari iyo colaad aan la mahadin oo caalamka oo dhan saameynaysa. waxaase muhiim ah in dagaalka laga waantoobo waayo nabad baa naas la nuuga leh. way mahadsan yihiin. waa qaar ka mid ah dhageystayaasha BBC-da ee Facebook. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. tahay qodobo kale ee noo soo socdo ay kamid tahay deegaan ka tirsan Sanaag oo ay ku direereen dadka deegaanka iyo Al-Shabaab, balse markan guddiga taakuleynta abaaraha ee Jamhuuriyadda Gooni-sutaageeda ku dhawaaqday ee Somaliland oo uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Somaliland iyo xubno wasiiro ah ayaa socdaal ku maray deegaanada qaar ee ay abaaruhu saameeyeen, iyagoo sheegay in biyo, raashin iyo lacagba ay la gaareen dadka ay abaartu saameysay. madaxweyne ku-xigeenka Somaliland ahna gudoomiyaha guddiga abaaraha Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici oo isagoo gobolka Sool ku sugan u waramay wariye Xasan Galeyd. waxaan u baxnay haddaan nahay guddigii taakuleynta abaaraha heer qaran, aniga iyo xubno wasiir ah iyo sekretarigii hay'adda maareynta aafooyinka dabiiciga waxaan u baxnay 3 gobol ee bariga oo abaartan guud ahaan ku dhacday geeska Afrika, gaar ahaan deegaanada Soomaalida oo dhan. Somaliland ay saameynta ugu badan ku dhacday 3 gobol ee bariga Sool, Sanaag iyo Togdheer. waxaan ujeedadeedu wuxuu safar u daaran yahay inaan soo aragno ama soo indhayno dhibaatada intay leeg tahay, iyadoo inta warka inta badan hayno haddana indhahay ku soo aragno dadka iyo dunyada iyo wax kastaba bal intay leeg tahay saameynta jirtay inaan indhahay ku soo aragno oo iyo wixii aan hayno oo aan u geyno wixii xaaladahan ku soo aragno hadhow dib aan u qiimayno yaan u soo baxnay. mudane madaxweyne, deegaamada aad marteen kuwee ugu daran? runtii markaad qiyaasto ilaa intaan imika aragay gobolkii Togdheer waa sii dhawaan dhamaynayntiisa badan oo sii marnay. gobolkii Soolna maantaan ku jirnay ilaa xalay baan ku jirnay. markaad eegto ilaa hadda soofa intaan marnay hadday Sool tahay iyo hadday tahay gobolkii Togdheer oo intii badan soo marnay way ka siman yihiin hal shay ka siman yihiin. waxay ka siman yihiin biyo la'aan. roobkii 2021 ee la oran jiray dayrta iyo gugii oo yaraa labadaas oo isbiirsadeen baa keenay meelihii biyuhu ku biyaadeen oo saameeyo barkada lagu kaydsado meeshii dabiiciga ahayd ee maaragtay ballayga ahayd eelkii intiiba markii roobkii muddo u maqnaa 7-8 bilood roob la'aan dhacday. waxay ka siman yihiin biyo la'aanta, laakiinse ilaa hadda dadka ma jiro xoolaha inkaasoo dhimashayna ma jiraan. weliba ilaa hadda xoolahooda indhahooda way fiican yihiin oo weli xoolo laga dayriyaa ma jiro, laakiinse waxaa laga siman yahay ma kala darna. meeshii waxaa laga yaabaa say u kala daran yihiin, meesha ka dheer yihiin biyuhu ka dheer yihiin baa si dhibta badan si haysataa, laakiinse guud ahaan ay wada qabaan dhibaatada biyalaanta ay wada qabaan. marka deegaamadaasi aad marteen ma indhaindhaynun baad u socoteen mise waxbaad u geynayseen? intii hore aan magacawnayna gudi ahaan ku jirnay qorshaynta ku jirnay la kulano qaybii bulshada reer Somaliland iyo hay'adihii nala shaqaynayay. muddada magacawnaynta baan ka shaqaynay. haddana kuma ekaana gurmadka qaranka waan wadnay. Soomaalidu waxay ku maamaada hoos nin loo galgashaa loo weerkiyaa. annagu qaranku wixii horta hayay buu ku bilaabay. marka intaanaan soo bixin 2 gacmood horaan u soo dirnay biyo dhaamiska iyo xoogaa raashina mar u soo dirnay 3 gobol. imikana wixii wax ka badan baan imika u sidnaa gobol kastaba waxaan ugu soo talagalnay oo kaasha oo miili wada arkayo iyo guddiga gobolka taakuleynta abaaraha oo guddi oo hogaamiyo mar walba balasaafka gobolka ama guddiga gobolka ayaan guddoonsiinayo. waxaad sidaan ee aad u dhiibaysaan dadka si ay dadka u gaadhsiiyaan ma ku dabagalaysaan oo ma jirtaa cid la xisaabtamaysa sidii dadkii baahnaa ay u gaadho kaalmadu? waxaan u socnaaba waa kuwa qoraayagu
mar wixii aan soo dirnay oo daba galayno in halkii gaarsiina ku ogaanayno waxaan nala socda sekretarigii hay'adda iyo nala socda maareynta afooyinka dabiiciga master faysal baa nala socda iyo xogeyn kale qolo walba la xisaabtamaysa xisaab xilkii iyo xisaab ciidan ayaan ka soo qaadaynaa xisaabta kuna u garab socday hore la soo diray wixii imkaasi malesaasaan u dhiibaynaa iyagoo gobolkaasi iyo cayaanta gobolka joogta halkaa ugu dhiibaynaa dardaaranna halkaa anugu ugu gudbinaynay mar walbana aan leenahay waxaasi laydiin dhiibay saad u kale dhibaato badan tihiin isku siiya dadka dhibaatada kale ee haysata waxaa ka mid a in xoolihii intii macaana aanay jirin saylad oo aan la iibsanayn marka inna xukuumad ahaan ma ka tashateen in xoolaha suuq loo helo sida kuwa caafimaad qaba ee saylada tegi karaya iib loogu heli lahaa wallahi taa kulleeda waa qorshe waxaa dhiman uu iska dhacaa suuq kollaga suuqa uu noolaadaa kolla suuq hoos buu dhacaa imika sidaa warta warbixinta ku hayna weysa in tayar imkaan shaqaynaynay runtii u dambeysay anagoo ku mashquulka hayn taakumeesha akhbaaraha ayay inta badan aan ka maqalay dadka lagu soo qaylaya inay xoolihii iib lahayn laakiin se imika hadda dhibaatada cusubaa timiday maadaama dhibaatadii ku cusub tahay sidii kale xal loogu heli lahaa xoolaha suuqlaad ku dhacday waa dib laiska weydiin doona laakiin anagu waan ku mashquulsanaha imika abaarta iyo saameynta xun ku yeelatay inaan iyo hawsha mashquul ugu badan ka shaqeeyana kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka somalilan ahna gudoomiyaha guddiga abaaraha cabdiraxmaan cabdulaahi saylici oo u waramayay wariye xasan galaydh wararkii cayaaraha ayaad gordhow maqli doontaan balse markan deegaanka milxo oo ka tirsan gobolka sanaag ayaa markii labaad wuxuu shalay gelinkii dambe dagaal uu ku dhex maray qaar ka mid ah dadka deegaanka iyo maleeshiyo ka tirsan al-shabaab kuwaasoo doonaya sida ay wararku sheegayaan inay canshuur ay ka qaadaan ilaa hadda ma cadda khasaaraha ka dhashay dagaalkaas maxamed xasan dhalo oo jooga magaalada boosaaso oo lana socday dagaalkaas ayaa goordhaweyd faarax lamaane ugu waramay waa mahadsantahay faarax lamaanow shalay galab ayay ahayd markii sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan puntland warbaahinta u sheegeen in wax lagu tuurtuuray oo hoobiyayaal lagu riday magaalada kabacdina ay shabaab weeraray laakiin ciidamo halkaasi ku sugan oo ka tirsan kuwa dowladda puntland iyo kuwo kaleeto oo ah ciidamo deegaankaasi iska abaabulay oo muddooyinka u dameeyey shabaab kula dagaalamayay deegaankaasi ayay iska caabin kala kulmeen waxayna sheegeen mas-uuliyiintaasi in shabaab dib loo celiyey oo deegaanka aysan qabsan laakiin arrintaasi shalay ayay dhacday dhowr jeer oo horena halkaas ayay iskaga hor yimaadeen dad deegaanka ah oo is-abaabulay iyo ururka shabaab dhalo waxaad iga warantaa deegaanka iminka waxaa la leeyahay isgaarsiintii waa ay go'an tahay meeshana waxbaa ka dhacay maxaan ka ognahay isgaarsiinta waxaa la ii sheegay in hadda ka hor ay la gooyey oo xitaa fiilooyinka iyo birihii taawaradii taagnaa xarkihii qaadi jiray isgaarsiinta ahaa in la jaray oo cidda jartayna aan la xaqiijin laakiin arrintaasi waxay sababtay in halkaasi isgaarsiintu ay ka go'an tahay oo aan telefoonadii la heli karin oo dadkii iyo xiriirkoodii u adkaaday marka arrintu sidaas ayay u dhacday markii horeto wayna ka go'an tahay isgaarsiintu meeshan lagu dirirayo ee la yidhaahdo milxo iminkana markii labaad ay tahay intaan ognahay shabaab iyo dadka deegaanku ay ku dirirayaan masawirba naga siin kartaa maxay tahay deegaanka la yidhaahdo milxo waa deegaan buureed hoos yaalla casha madow silsilada golis hoosteedu ayuu ku yaallaa deegaankaasi waxaa la yidhaahdaa macagta wuxuu hoos tagaa degmada laasqoray ee gobolka sanaag halkaasi 3 sano ilaa 4 sano ugu dambeysay waxaa joogay dad ilaa 5 kun 6 kun gaaraya oo isaga kala yimid deegaamo ka tirsan sanaag iyo bari iyo xitaa dadka qaarkood ay togdheer ka yimaadeen oo dadkaasi ay u joogeen halkaasi macdan in laga qoto oo dhulka godad waaweyn oo ilaa 5 mitir hoos u qodan dhulkaasi laga qodo saacada yaaliin mashina yaaliin oo wax lagu farsamaysto oo arrintaasi ayaa dhulkaasi intii ugu dambeysay ka jirtay deegaankaasi milxa la yiraahdo isqabadka dadka deegaanka iyo shabaabkana waxa uu ka soo bilowday sida ay noo sheegeen dadka deegaanku in meeshan cashuur ayaan ka qaadaynaa macdantana la soo baxdaan dadkii deegaankuna ay diideen iska horimaad ayaa markii koowaad dhacay dadkaasina way isabaabuleen iska horimaadkaasi kadib ayaa ciidamo ka tirsan kuwa puntland meesha tagaan marka deegaanka noociisu waa sidaas maxamed xasan dhalo ayuu kaasi ahaa oo u waramayay faarax lamaane barnaamijka ciyaaraha tabinta tooska ah ee sabtida
toddobaadkan waxaynu idinkugu soo gudbinaynaa ciyaarta dhaaftay kulanka la isku fardacaynsaday waa ciyaarta garoonka Anfield Stadium kooxda Liverpool ee calanwalaynaysa ay ku soo dhaweynayso kooxda West Ham ee baadi goobaysa ka qaybgalka tartanka Champions League xilli ciyaareedka soo socda. Liverpool ciyaarta ka horeysay ee labadani kooxood iskaga hor yimaadaan guriga West Ham ayaa lagu soo ciqaabay iminka oo gurigeeda ay joogto ma awoodo dhibcaha inay ka qaadato kooxda West Ham oo kaalita afraad dagaal ugu jirta. Mr. West Ham ayaa taa ka dhigi doonta Liverpool oo cagta ugu haysa Man City. Lagu soo biir tabinta tooska oo soo gali doonta 8 fiidnimo saacada bariga Afrika oo u dhiganta 5 galabnimo waqtiga London. Tabinta tooska BBC. tiro dad ah ayaa ku dhintay halka kuwa kalena ay ku dhaawacmeen dagaal beeleed ka dhacay qaybo ka mid ah degmada Lehelow Yacub ee gobolka Dolow ee dawlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya. Dagaalkan oo sida la sheegay bilowday shalay ee gelinkii dambe ayaa la sheegay in maleeshiyo beeleedyadii dirirayay ay isu gabaal dhacsadeen isla markaana uu jiro khasaaro fara badan. Haddaba warkii ugu dambeeyay waxaa ka waramay Ismaaciil Buurgaabo oo u waramay Xasan Cali Geel. xasanow dagaalkan waxa uu ka dhacay dhul baadiye ah oo ka tirsan degmada Lehelow Yacub ee gobolka Dolo meel xarunta degmada u jirto 25 kilomitir dhanka koonfur bari kaga beegan waxa uu bilaabmay barqadii shalay toole waxa uu socday ilaa iyo gabaldhicii shalay marka dagaalka waxa uu dagaal u dhaxeeya laba beelood oo halka wada degan oo midka kale ku eedeynayo inuu markaasi dhul balaarsi iyo durugsi wado waana arin la xiriira beelaha Soomaaliyeed dibka dhexdooda ka dhacay la xiriira dhul daaqsimeedka waan gartay ilaa iyo haatan khasaaraha maxaan ka ognahay xiriiraan la sameeyay dad aaga ka agdhow iyo maamulka halka ka jira ee gobolka waxay sheegayaan tiradu dhowr iyo 10 gaari soo dhimasho ah dhaawacana sodomeeyo kor u dhaafaya khasaaraha ilaa iminka inkastoona wali xaqiijin karin inta ayaa lagu sheegayaa dhimashada dhowr iyo 10 iyo sodomeeyo dhaawaca xasanow ilaa iyo haatan wax waana ama dadaalo nabadeed oo socdo oo la doonayo in colaadaasi lagu soo afjaro oo aan ognahay ma jira inta aan ogahay dhaqdhaqaaq nabadoonnimo oo colaada lagu soo afmeerayo waxa weeye taaba galay ma jiro dagaalkana iskii buu istaagay kadib markii ay casar gaabad ay noqoto ee qorraxdii sii dhacday ilaa iminkana ma hubo inay jiraan cid hadda kala dhex gashay oo markaasi nabadeyn ka dhex wada labada beelood oo wada dagaalka laakiin waxa jiray dadaalo ay dawladdu waday oo ka horeeyay intoosan dagaalkan bilaaban xasanow sidaan la wada soconno isku dhacyada beelaha salka ku haya dhul daaqsimeedka iyo deegaameynta isriixa dagaalada ka dhasha waxay ahaayeen kuwo soo jiray sina xogeystay 3 sano ugu dambeeyay inkastoo mar walba ay jirtay dadaal xukuumadda ay markaasi ku kala dhexgalayso go'aamana ay ka soo saarayso labada beelood ee wada degan ee markaasi dirirtu shalay dhex martay waxa Google u taaray magaalada Wardheer ee xarunta gobolka Dolo oo loogu kala garqaadiyay go'aan soo baxay shalay barqadii ayaan la filayaa inuu mid ka mid ah beelaha markaasi ay dhibsatay dagaalkana uu sida ku bilowday sida dad xogaale ay sheegayaan way jirtaa wayna socon doontaa ayaan filayaa xukuumadda deegaanka Soomaalida xafiiska nabadgelyada ee dawladda deegaanka Soomaalida inuu arintaasi wax ka qabto oo markaasi dib loo isugu soo celiyo sidii loo nabadeyn lahaa dadka walaalaha wada degan. Ismaaciil Buurgaabo ayuu ahaa oo u waramay Xasan Cali Geele. Wararka ciyaarahana markan haddii aan eegno caawa waxa dhacay kulamo ka tirsan FA Cup-ka iyo Copa del Rey ee Spain. FA Cup-ka haddaan eegno Everton iyo Bournemouth ayaa wada ciyaari doona. Ciyaartaasina waxay soo geli doontaa 11 habeenimo iyo rubi. Copa del Rey waxa wada ciyaari doona Real Betis iyo Rayo Vallecano 11 habeenimo oo gow ah. kulamadii xalay dhacay haddii aan eegno Luton Town iyo Chelsea ayaa wada ciyaaray. Chelsea ayaana 3-2 ku badisay Southampton iyo West Hamna. Southampton ayaa 3-1 ku badisay halka Liverpool ay 2 gool iyo 1 ugu adkaatay Norwich City. dhageystayaal waxaan intaa ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkeena duhurnimo oo Fartuun Ismaaciil ay soo saartay anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdullaahi inaan idin la socodsiinayay tan iyo kulankeena xiga 2 duhurnimo inta ka horeysa waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.